beri baa nin iyo xaaskiisa oo la odhan jiray Geedi Quule waxay la noolaayeen reerka gabadha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Geedi Quule uu u baxay dhaan si uu u soo dhaamiyo ama uga soo dhaamiyo ceel fog. Markii uu ceelkii soo gaadhay ayaa waxa uu ku arkay nin xidhan dhar cad. Markaa ninkii waxa uu ku yidhi markii ay iswareysteen, haddee kiina legdama legdanka ku badiya ayaa qaadanaya ama dhaansanaya biyaha. Markaa ninkan geesiga ah waa uu ka yeelay. Markii uu ka yeelay ayaa ninkii waxa uu sameeyey inuu ismariyo qorigiisii. Qorigii markii uu ismariyey ayuu ninkii waxa uu noqday bahal. Markii uu bahal noqday ayaa ninkii ayuu cunay. Markuu ninkii cunay haddana wuxuu ismariyey qorigiisii. Qorigii markuu ismariyey haddana ee uu ninkii cunay ayaa waxa dhacday inuu haddana qorigii ismariyo mar labaad oo haddana ninkii isku ekaysiiyo oo uu dharkiisii xidho. Kadib ayuu dhaankii qaaday. Markii dambe xilli habeena ayuu ku soo beegay si aan loo garanin. Kadib dadkii ayuu ku yidhi dhaanka fura, anigu waan soo daalay. Kadib markii dadkii ay dhaanka fureen ayaa waxa dhacday inuu xaaskiisii ku yidhaahdo cunto ii soo diyaari. Kadib markii cuntadii ay siisay ayay ka baxday. Markii ay ka baxday ayaa waxa uu sameeyey inuu cuntadii daaqada ka daadiyo. Ilaa waa bahal dad qale isagu cuntada bilaadanka ma cunee. Gabadhii markii ka baxday ayuu waxa uu sameeyey inuu daaqada ka daadiyo. Kadib aroornimadii ayuu u yimiday inanta aabaheed. Markaa waxa uu ku yidhi bariyahan maan tagin xaafadeedii. Markaa waxaan doonayaa aniga iyo xaaskaygu inaan soo booqano xaafadeedii. Kadib odaygii waa uu ka yeelay. Markii uu ka yeelay ayay israaceen. Markay israaceen dhexdaba marka ay marayaan ayaa waxa dhacday inuu ninkii dad qalka ahaa uu yiraahdo anigu waan daalay awrka aan fuulo. Awrkii markii uu fuulay ayaa waxa dhacday inuu awrkii dusha ka cuno ama kuruska uu ka goosto. Kadib markii ay gabadhii ku tiri fuul ayaa waxa dhacday inuu awrkii dusha ka cuno ama uu kuruska ka goosto. Ilaa waa dad qale. Gabadhii way ka yeeshay inuu fuulo hadda. Markaa wuxuu iska dhigay bahalkii haddana geedkii ismariyey. Awrkii baa qayliyey. Gabadhii ayaa tiri bacadlow maxaa kugu dhacay? Markaasuu ku yidhi shuuliyada aad xidhantahay ama tijimahaaga timaxdooda ayuu ka baqayaaye iska siib. Way hebee tiri way iska siibtay. Kadib markii dambe ay xoogaa socdeen ayaa haddana intuu geedkii ismariyey ayuu haddana mar labaad kuruska ka cunay awrkii. Kadib haddana uu qayliyey. Markaasay haddana gabadhii tiri bacadlow maxaa kugu dhacay? Haddana waxa uu yidhi shaqafta kabahaagu ka baqayaa bahalkuye iska saar. Kadib kabihii markii ay saartay ayaa waxa dhacday haddana inuu mar saddexaad haddana uu awrkii qaniino. Ilaa waa bahale. Markii saddexaad ayuu haddana awrkii qayliyey. Markaasay tiri bacadlow maxaa kugu dhacay? Kadib baa waxa dhacday haddana inuu ku yidhaa hurufta maryahaaga ayuu ka baqayaaye maryaha iska saar. Kadib waxa ay garatay inuuna ninkani maryaha saar lehi aanu ahayn ninkeedii. Kadib markay xoogaa socdeen ayay ku tiri anigu waan daalay haddaba waa markaagii soo dego anigu aan koro. Waa uu ka yeelay. Laakiinse hal shardi ayuu ku xidhay oo waxa uu ku yidhi kabada hoosteeda ha eegin. Iyadiina si qarsoodi ah ayuu eegtay kabada hoosteeda.
kadib waxay aragtay dhaawac ku yaal awrka. Markaa ayay garatay inuuna ninkani ninkeedii ahayni uu yahay nin geeris maris ah ama dad qalato ah ay garatay. Kadib waa ay fikirtay, waxay istiri maxaad samaysaa? Waxay ku tiri geedka quraca halka ku yaala ayaa beri aan yaraa alaab aan dhigtay ayaan ka soo eeganaya geedka geey. Isna kama u diidini waa uu ka yeelay. Markii imika geedkii markii ay ku dhawaadeen ayaa waxa dhacday inay geedkii gabadhu ay korto oo ayna sidaa kaga badbaado ninkii dad qalatada ahaa ee ninkeeda iskaga dhigayay. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe